kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkani waraadka wararka waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda Soomaaliya qodobada ugu waaweyn ee daawad doontaan waxaa kamid ah doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi oo noqon weysay sidii la filayay iyo siyaasiyiin caan ah oo qoraal xasaasi ah ka soo saaray beesha Abargidir oo fariin culus u dirtay farmaajo dowladda Uganda oo ciidamadeeda kala baxaysa Soomaaliya qodbadaha musharaxiinta aqalka sare ee gobolada waqooyi oo maanta la dhageysanayo Kenya oo shaacisay in ay qarax ku dhinteen xubno ka tirsan al-shabaab qodobadaas oo faahfaahsan ayaad goordhow daawadayaal daawad doontaan balse waxaan idinka codsanaynaa in channelkeena raadka wararka subscribe saartaan muuqaalkana like saartaan oo sii share gareysaan gambaleelka furo si ay muuqaaladeena si degdeg ah kuugu soo gaaraan doorashada aqalka sare ee gobolada waqooyi ee Somaliland ayaa noqon weysay sidii la filayay waxaana qoraal xasaasi ah ka soo saaray siyaasiyiin caan ah siyaasiyiinta kala Xuseen Carab Ciise Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan iyo Ridwaan Xirsi Maxamed oo ka soo warjeeda gobolada waqooyi ee Somaliland ayaa wadajir u soo saaray war-saxaafadeed ay uga soo horjeedaan hanaanka ay Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed u maamulayaan doorashada kuraasta xubnaha aqalka sare ee gobolada waqooyi saddexdan siyaasi oo ra'iisul wasaare ku-xigeen ka soo wada noqday dowladihii dalka Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saareen waxa ay ku yiraahdeen iyadoo aan aad u soo dhaweynay heshiiskii labada daraf ee siyaasiyiinta ka soo jeeda Somaliland oo aan qayb ka ahayn waxa la rajeynayay inay qabsanto doorasho xor ah oo xalaal ah oo ku dhisan tartan loo siman yahay kuna dhacda si cadaalad ah siyaasiyiintan ayaa nuxurka qoraalkooda waxay ku soo koobeen in doorashada Somaliland ay haatan ku socoto wada qaldan waxa ayna sheegeen in Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Mahdi Maxamed Guuleed iyagoo ah musharaxiin ay soo qorteen musharaxiin kale si ay loo tartamaan waxayna sheegeen in arrinkaasi ay tahay mid baalmarsan xeerarka dastuurka ee dalka waxayna sheegeen in aad uga soo horjeedaan tillaabooyinka ay qaadeen Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Mahdi Maxamed Guuleed doorashada aqalka sare ee maamulka Somaliland ayaa ka dhacaysa magaalada Muqdisho waxaana ka socda magaalada Muqdisho diyaarad garowgii ugu dambeeyay oo lagu jiro doorashadaasi odayaasha dhaqanka beesha Abargidir ayaa fariin culus u diray madaxweynaha muddaxleedkiisa oo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo odayaasha dhaqanka beesha Abargidir oo iskugu yimid magaalada Muqdisho ayaa waxa ay fariin culus u direen madaxweynaha muddaxleedkiisa oo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulankan oo ka dhacay mid kamid ah hoteelada magaalada Muqdisho ayaa waxa ay iskugu yimid golaha dhaqanka ee beesha Abargidir waxaana kulankaasi laga soo saaray qodobo xasaasi ah gudoomiyaha golaha Abargidir Shirwac ayaa waxa uu sheegay in uu aad ugu xun yahay tillaabooyinka qaldan ee qaadayo Farmaajo waxa uu ku baaqay in la taageero ra'iisul wasaare Roble Shirwac ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in beesha Abargidir ay hub ka dhigtay isla markaana haatan dhalinyaro ay doonayaan in mar kale ay hub ka qaataan waxa uu sheegay in hubka ay dhigeen inay qaateen nabadda sidoo kalena waxa uu ku baaqay in dhalinyarada aanan weli soo arkin dagaalada ee haatan doonaya inay dalka dagaal galiyaan inay ka tanaasulaan Shirwac ayaa sheegay in doorashooyinka amniga dalka oo mas'uul ka yahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isagana looga dambeeyo waxa uu eedeyn u jeediyay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor isagoo ku eedeeyay in uu wado dhexdhexaadin shirqool ah gudoomiye Shirwac ayaa waxa uu sheegay in xilligan doorashada dalka aysan hogaamin karin laba qof waxa uu sheegay in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo san ahayn musharax loona baahan yahay in isaga looga dambeeyo madaxweynaha muddaxleedkiisa oo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay inuu carqaladeynta ka daayo amniga iyo doorashooyinka dalka ugu dambeyntii gudoomiye Shirwac ayaa waxa uu ugu baaqay dowlad goboleedyada dalka iyo shacabka Soomaaliyeed inay u istaagaan garab istaagna u muujiyaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo xilligan wada doorashooyinka dalka waxa uu sheegay in loo baahan yahay in isaga looga dambeeyo dowladda Uganda ayaa ciidamadeeda kala baxaysa Soomaaliya waxaana shalay magaalada Muqdisho soo gaaray taliyaha ciidamada lugta ee dalka Uganda madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo dhawaan ka hadlayay xaaladda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ciidamadiisa oo kala baxay Soomaaliya haddii ay heshiis waayaan siyaasiyiinta Soomaalida sida ay inoo xaqiijiyeen ila muhiim ah dowladda Uganda ayaa walwal ka qabto isqabqabsiga u dhaxeeya madaxweynaha muddaxleedkiisa oo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble inuu qatar geliyo ciidamada Uganda ee ku sugan Soomaaliya madaxweyne Museveni ayaa hore u sheegay inuu ciidankiisa kala baxayo Soomaaliya haddii aan xal degdeg ah laga gaarin khilaafka siyaasadda ee u dhaxeeya madaxweynaha muddaxleedkiisa oo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble madaxweyne Farmaajo ayaa waxa waardiiyay ciidamo Uganda ka socda isagoo aan isku aamini karin ciidanka Soomaalida dowladda Mareykanka ayaa ku dhiirigelisay madaxweyne Museveni inuu canaanto madaxda Soomaaliya isaga oo isticmaalaya awoodda uu ku leeyahay dalka Soomaaliya taliyaha ciidanka lugta ee dowladda Uganda oo ah wiil oo dhalay Yoweri Museveni
ayaa sidoo kale waxaa la filayaa inuu kala hadlo madaxda Soomaalida dadkii AMISOM dhawaan ku xasuuqday gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamo ka tirsan AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda ayaa dad shacab ah ku xasuuqay gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana arrinkaasi ka dhashay dibadbaxyo xooggan kuwaasi oo looga soo horjeeday ciidanka AMISOM. dowladda Uganda ayaana sheegtay inay magdhow ka bixi doonto dilkii askarteeda geysteen. khudbadaha musharaxiinta aqalka sare ee gobolada waqooyi ayaa maanta lagu dhageysanayaa magaalada Muqdisho. maanta oo Talaado ah ayaa waxaa la filayaa in ergooyin ka dooranaya xildhibaanada aqalka sare ee gobolada waqooyi in hoolka afisyooni ee magaalada Muqdisho ku dhageystaan khudbadaha musharaxiinta kuraasta aqalka sare ee gobolada waqooyi ee Somaliland. shalay ayuu qorshaha ahaa in la dhageysto khudbadaha si ay maanta u qabsanto doorashada, balse guddiga maamulaya doorashooyinka ayaa shaaciyay in dib loo dhigay. 11 kursi ee gobolada waqooyi ee Somaliland ayaa la filayaa inay u tartamaan musharaxiin dhowr ah. kursiga koowaad kaliya ayaa waxa uu xirnaa Cabdi Xaashi Cabdullaahi, gudoomiyaha aqalka sare, balse xalay shir jaraa'id oo qabtay Mahdi Maxamed Guuleed ayuu ku shaaciyay in la helay nin la tartamo, kaas oo guddiga doorashooyinka ay diiwaan geliyeen, waxaana lagu magacaabaa Saciid Cumar Xuseen. musharaxiinta maanta khudbadaha jeedinaya ayaa waxaa ka mid ah senataro hore uga soo mid noqday aqalka sare, waxaana la filayaa in mar kale loo doorto aqalka sare. dowladda Kenya ayaa shaacisay inay qarax ku dhinteen xubno ka tirsan Al-Shabaab. ugu yaraan 15 qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa dhintay kadib markii gaari ay wateen oo dul maray miino dhulka lagu aasay, kaas oo marayay meel ku dhow xadka Soomaaliya ay la wadaagto Kenya. afhayeenka ciidamada Kenya ayaa waxa uu xaqiijiyay in dhacdadu ay dhacday maalinimadii shalay Isniin ahayd, waxa uuna sheegay in ay ka dhacday meel u dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya. afhayeenka ayaa sheegay in miinada dhulka lagu aaso ay wadada dhigeen koox kale oo ka tirsan Al-Shabaab kahor inta aysan xubno kale oo ka tirsan Al-Shabaab dul marin. gaariga ayaa qarxay oo gubtay dhammaan, waxaana ku baaba'ay ayuu yiri dadkii saaraa. dowladda Kenya ayaa waxay ciidamo ka joogaan gudaha Soomaaliya, waxayna dagaalo la galaan dagaalyahanada Al-Shabaab. ciidanka Kenya ayaa sidoo kale duqeymo ka geysta gobolka Gedo, kuwaas oo ay ku laayaan dad shacab ah oo aan waxba galabsan. guud ahaan warka aad ka daawanayseen raadka wararka daawadayaal waa inaga intaa.